ayuu qaabilsanaa MMJ baa la oranayay wuu ka horeeyay shanta wariye meesha ku dhibatay uu ka horeeyay ninkii ugu horeeyay lagu dilo ahaa meesha isagoo idaacada ka soo baxayba intaanu meesha ceelgaabta leeyahay intaanu gaarin ninkii garanaya xabar iyo wasaaradda faafinta iyo ceelgaabta intii isku jiraan oo la garanaya ayuu halka ku dhintay oo halkaas lagu dilay marka inta badan ninkaas wax meesha ku dhintay ninkaas ugu horeeyay inta kale way ku xigeen taaka iyo waxa uu markii dambe sameeyay askartii kale ee meesha la joogtay 1991 waxa uu ka badbaaday inuu dilo Sufyaan Taakeeye. Wariyahan ayaa lagu magacaabaa Maxamed Cumar Sheekh oo ahaa wariyaashii ka shaqayn jiray xilligaasi isaga oo wariyahani cusub wax badan oo aan la ogeyn sheegay. Waxa kaleeto uu sheegay in nin horeete oo ka horeeyay 5 wariye ee dadku wadaan uu jiro kaasoo uu dilay Sufyaan Taakeeye. Maxamed Sheekh oo ah wariyahan waxa uu noqonayaa markhaatigii shanaad ee ku cadeynaya inuu dilka geystay Sufyaan Taakeeye ama sida u taqaanaba afar xaasle. Daba inta aanan idiin soo gudbin muuqaalka qiirada leh marka uu ka sheekeynayo sidii uu uga badbaaday markii uu dili rabay Taakeeye ama Sufyaan sidaad u taqaanaba waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka la gareysaan si uu meel dheer u gaaro. sidoo kale channelkeena ku soo biir oo subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kuugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada degdega ah aan halkan soo gelino. soo noqod wanaagsan sidaan horey idinkugu sheegnaba waxaa soo baxay markhaatigii shanaad oo sheegaya qaabkii ay wax u dhaceen 1991 taasoo ahayd xilligii Sufyaan Taakeeye oo dadka ku laayay idaacadda raadiyo Muqdisho gudaheeda. Arinta yaabka leh oo sheegay ninkani ayaa waxa ay tahay markuu ka dhawaajiyay 5 nin uu dilay Sufyaan Taakeeye oo hadda loo haysto ma ahan mid kale oo hor leh kaasoo uu sheegay inuu 5 nin ka horeeyay. haddaba wariyahan Maxamed Cumar Sheekh lagu magacaabo waxa uu sheegay in uu xilliga uu warka akhrinayo ninkani qorigiisa intuu ula soo galo uu ku baacbaacsan jiray uuna ka cabsan jiray isaga oo sheegay inuu xilliga warka uu akhrinayo uu asaga dartiis uga cabsan jiray inuu war akhrin. haddaba waxaad la daawataa muuqaalka uga warramaya Sufyaan Taakeeye ama afar xaasle sidaad u taqaanaba. Maxamed Cumar Sheekh oo ka mid ahaa dadkii xilligaasi ku sugnaa magaalada Muqdisho goobjoogna u ahaa idaacadda raadiyo Muqdisho marka uu dilka ku geysanayay Sufyaan Taakeeye. la soo daawo muuqaalkaas yar. waxaan doonayaa halkan inaad idinka cadeeyo wixii aan ka ogaa nin baryahan dambe baraha bulshada lagu hadalhayo oo la yiraahdo Taakeeye ama Sufyaan ama magac kale magacyada afar xaasle iyo noocaas oo kale aan ku arko markii ay ciidamada USC soo galeen Muqdisho waxa qolo waliba ay qabsatay hay'ad ama wasaarad qaar ba qabsaday wasaaradda faafinta u badnaa goladan gobolada dhexe ka yimi ama beesha habargidro badnaa wasaaradda isgaarsiinta qaar ba qabsaday baarlamaanka waxa qabsaday qolo kale sidaas ayaa markii aan meesha joognay saan u joognay meeshina lagu dul qabsaday ciidankii dawladana uga baxay siyaad barana wadanka markii uu ka baxay dabadeed waxa halka ka dhacay waxyaabo aad u fara badan oo ku saabsan ninkaasi. ninkani waxa uu ka mid ahaa Taakeeye la yiraahdo ciidamo nin dhalinyaro aad u daayar buu ahaa wuxuu ka tirsanaa ciidanka. arinta cajiibka ah uu sheegay wariyihii horeete ee idaacadda raadiyo Muqdisho oo ah markhaati cusub oo hadda soo baxay ayaa waxa uu sheegay in USC iyo sidoo kale UNC haddii uu isku qaldo uu ka baqi jiray inuu ninkani dilo maadaama ninkani uu daabacsanaa ciidamada USC-da kuwaas oo ahaa kuwii xilligaas ka talinayay idaacadda raadiyo Muqdisho iyo sidoo kale wasaaradda warfaafinta Soomaaliya 1991 xilligaas oo Sufyaan uu sheegay inuu ahaa nin macallin ah balse ninkani uu sheegay inuu ahaa nin aad u daayar oo sidoo kale qoriga uu ku cusbaa xilligaasna qofku arka iska dili jiray. haddaba la sii daawo muuqaalka Maxamed Cumar Sheekh oo ah wariye ka mid ah xilligii 1991 ID ama USC-da waxaanu had iyo jeer wuxuu ahaa nin aad uga duwan askarta kale waayo ciidamadii dawladda siyaad barreeyo dibadda kamay soo wareegi jirin oo may soo gali jirin stuudiyaasha may soo gali jirin ninkan qoriga intuu qaato iyo stuudiyaha la soo galaya markaa adoo warkii akhriyay ayuu kula soo fadhiisanaya kii qorisita. Taakeeye marka waxaan ka shakiyay haddaan iraahdo USC SNA iyo USC bay kala ahaayeen haddaan khaldamo oo aan iraahdo USC
oo siyaad barraa ama USO General Caydiid aan kala garan waayo markaas loo kay qaldamo bilow kugu dhufay darteed baan horta halka uga shakisanaa taakeeye waxa uu markii dambe sameeyay askartii kale ee meesha la joogtay intuu iskaga baxay ayuu wariyaashii iska raacay soo qorisita taw kaga duwan horta askarta taas ay ahayd wuxuu maalin weydiiyay qolada hoos bii weydiiyay waxaan ku yiri saaq baana waayo nin walba weydiinay soo wiiga tagay ninkaas wiiga tagay taakeeye leeyahay haddana magaal meeshana ma joogin waxay saaq leeyahay oo wariyaasha meesha joogay ku xidhnaa waxay ahaayeen kuwa inta badan u dhashay koonfurta marka laga reebo aniga odaygaas ku hadhnay odayga waxaan ku yiri arrinkii wuxuu yahay maxaa yeelan iska tagna meesha xasan ayoo adeero inaga meesha waxyaalo badan baa soo kordhay inaga mari wuxuu yiraahdo halkaan ku dhimanayay boorama ma tagay sidii ayaa dhowr 2010 ayuu ku dhintay magaalada Muqdisho ama 2008 waxay mooyaan xaalku waa isbedelay oo waa wax kale oo cajiib ah oo lala yaabo markuu ninkani cusub sheegay in nin horeete oo ka mid ahaa raggii ka shaqeynayay raadiyo Muqdisho uu asna dilay balse ninkan ayaa hadalkiisa waxa uu u dhigay in uusan goobjoog ahayn markii shantan wariye ee la sheegayo uu dilayay taakeeye balse uu goobjoog ahaa markii uu dilayay wariyaha horeete oo uu sheegayo waana mid kale oo cusub oo midkii laxad ku noqonaya dadkii uu dilay 1991 Sufyaan Taakeeye waxa uuna sheegay Maxamed Cumar Sheekh in markii uu ka shakiyay ninkani haba meel walba wariye kasta madax u gelinaya in uu gabi ahaanba isaga cararay idaacadda halkaasna uu ka baxsaday 1991 bishii labaad sida uu sheegay xilli la gal rabay bishii saddexaad maadaama xaalku uu ahaa mid sii xumaanaya oo dad iska soo baxeen dadka iska dilaya isaga oo sheegay inuu ku quustay marka la dilay mid ka mid ah raggii isla shaqeynayeen uuna dilay Sufyaan Taakeeye ninkani hadda meesha uu ku nool yahay waan idiin soo gudbin doonaa iyo meesha uu ka soo duubay muuqaalkani balse waxaad ila sii daawateen muuqaalka uga sheekeynayay taariikhda Taakeeye iyo arrinka afar haaslahan baraha bulshada aadka u qabsaday haddaba markaan dib u raacno ninkani dhaqdhaqaaqiisa markaan eegay hawshiisu sida wax u socdaan markaan eegay waxaan qoriga maba dhigo wariyaashu daba soconaya midba meel buu la galayaa midba meel buu stuudiyo kula galayaa si adoo warkii akhriya markaasaan gartay in meeshan ninkan wax kale meesha ay ka soo socdaan sidii ayaan maalinta qoladayda i weydiiyey ayaan shiki badan ay galay sidii baan 2019 bishii labaad dhamaadkeedii bisha saddexaadna ay bilaabanaysay isla 2019 ayaa kaga soo tagay sidaas ku tagay kaga imi oo u galay dalka Kenya aan u baxay marka dadkan uu laayay waxa ka horeeyay nin isaguna dhintay oo la oran jiray MMJ oo inuu majeerteen ama dhulbaahanta mid buu ahaa wuxuu ninkaasi qaabilsanaa kaydka idaacadda kani hadda waxa uu ku nool yahay magaalada Boorama ee dhankaasi Somaliland isaga oo sheegay in xilligii uu Sufyaan dadka leeniyay uga badbaaday inuu sheegtay qabiilka Isaaq sida uu sheegay maadaama uu Taakeeye ka tirsanaa ciidamada USC-duna aysan Isaaq attack aysan u ahayn haddaba daawade arrinkan marka ka dambeysa sii bedelaya oo haba weji cusub yeelanaya kaasoo ah in Sufyaan uu hadda marayo ninkii lixaad uu dilo kuwaas ay sheegayaan cadeemaha marka ka dambeysa soo baxaya maadaama marqaatigan hadeertaan hadlay uu sheegay mid kaleeto oo awal hore aan loo ogeyn oo lixaad inuu dilay Sufyaan Taakeeye arrintaas qaybta commentiga ayaad noogu falanqeyn kartiin oo noola wadaag kartiin wixii ra'yigiina ah balse muuqaalkani siduu meel dheer u gaaro fadlan muuqaalka noo share gareey sidoo kaleete noo la gareey si muuqaalku meel dheer u gaaro taas waxay ka qayb qaadanaysaa inuu muuqaalku noo fido hadii aad tahay qof ku cusub channelkeena waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto gombalelkana furato si aad ula socotid muuqaalada iyo warbixinada aan halkan soo gelino intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo